نبضي وركاشيلا من كواي باشيغا حسنون هابين سيحن نولشنا كبول سيغا حسنون هابين سيحن نولشنا كبول سيغا نبضي 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 وركاشيلا من كواي باشيغا حسنون هابين سيحن نولشنا كبول سيغا حسنون هابين سيحن نولشنا كبول سيغا نبضينا الكاتارا وحتى هاي معذيبي نبضينا الكاتارا وحتى هاي معذيبي كنارن 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 شيدانكو كنارن نبضي 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 نبضينا الكاتارا وحتى هاي معذيبي نبضينا الكاتارا وحتى هاي معذيبي كنارن 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 شيدانكو كنارن نبضي 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 markale daawadayaal waxaan idinku salaamay nabadgelyada naxariista nimcada iyo barakooyinka eebe waxaan halkan idinku soo gudbinayaa qaybtii labaad ee wafdiga xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland gurmadka ay ugu ambabaxday joojinta dhiigga walaalaha awlaadda sokeeye ku dhex martay koonfurta gobolka Sool taasoo sababtay khasaare naf iyo maalba leh galaafatayna dad aan waxba galabsan oo iyagu ku kala sugnaa halkaasi iyadoo xukuumadda Soomaaliland marnaba aysan ka yaraysan dhankeeda dadaalka iyo gurmadka xalinta khilaafkan gaamuray ee beero dhiig iyo dhalashaba ka dhaxeeyo darisna walaalo halkaasi ku dhex maray iyadoo xad iyo maaro loo laayahay ilaa hadda soo aftirida awlaadan gaamurtay halkaas ka taagan taasoo noqotay mid soo jiitantay oo muddo badan ka taagan halkaas galaafatayna dad masaakiin oo aan iyagu waxba galabsan daba soogaafii wafdiga warkaaya wasiirka madaxtooyadu waxay baaq culus iyo go'aamo adag ay hordhigeen beelaha wada degan deegaankaas iyagoo ku jira xilligan xaaladii ugu darnayd abaar colaad iyo weliba xanuuno kuwaas oo dhammaan wada ah mid ka timi على الله سبحانه وتعالى بنكيسة تاسو أهلا سيدا مقاطع مد على إلهي كتمي بينا مدنتها إن كتكو فعب رقاتان لغانا الطابت كانوا دنبيوغا أولوس أدامه نفته قصبين وحاني وفتقوا أي جيت هوستيسا كل لحاة شوذين لبدا بهرادة ولا الله إخلاف كبحي مقالة دبتها نارن كنارن شيدانكو كنارن نبضي 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 نبضينا الكاتارا وحتى هاي معذيبي نبضينا الكاتارا وحتى هاي معذيبي كنارن 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 شيدانكو كنارن نبضي 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 العالمين الحمد لله حمد كثيرا دورنا فيه هل كان يجونا وتولد دبتاج أو كم جوال كسول وتولين كهودك وحنون بمدنيال وحنين شيء قدرنا بسم الله الكريم هل كان سيدا وشيء هلا ووفتي أعدو علص وعلى رتال حلقة الصعطة أما حلقة ماشى مرصو وحي أسعتنا وحوي هوشة نبضة بيرها وراها وحي كلا أسعتها هوشة عبارة دي لهاي هذا لكن مهمة كوباد هل كان يوم مرة وحوي أي مسافر أنت عديروس مرتي إن أي كشة قيسو ولا بعضها دي لهاي نبضة لبضة بيرود idin kana waxa la idin karaa bidmillaahi kariim sida aad u dhageysan lahaydeen ama aad ma taqaanaa ugu dhagnuglaan lahaydeen waxay idin oran doonaan ma taqaanaa golaha wasiirada iyo saraakiisha meesha marasa shirkana way noo furiyay bidmillaahi kariim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh joogna marka hore ilaahay abaaraha inaga soo baaray meesha wada gasho maxay inkaar baa ka dhacday inay is uur xaadhataan baa loo baahan yahay masaafo dheer oo soo maray dhul badan oo kale way noo hadsan yihiin waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Salabaan waxaan u soconaa oo ujeedada safarka iyagu yahay
shaqaaqada ka taagnay deegaankan muddada sanadka ee soo dhammaan weyday oo aanu aada uga xunnahay inay dhammaan weydo shaqaaqada dhex martay labada reer ee wada dhashay ee wada degan ee aan kala maarmin ee dhimashadeedu iminka 80 ku dhowdahay dhaawacuna 150 ka badan yahay muddada sanadka isku dayo badan baa la sameeyey oo salaadiin leh oo guurti leh oo culimadiin leh ilaa haddana way soo afjarmilaada xukuumad ahaan waxaanu ugu jiray dadaal aada u weyn muddadii dhibaatadaasi jirtay sidii loo soo afjari lahaa annagoo u marayna dhaqanka oo ku taakulaynayna salaadiinta iyo culimadiinkaba sidii ay hawshaa usoo afjari lahaayeen way dhammaan weyday waxaana ka dhammaan weyday xaggiina oo aanu aada iyo aada uga xunnahay idinkuna dhaliilayno caqligu hadduu shaqayn waayo waxaa dhacadee arrimaha noocaas oo kalea caqli iyo dhaqan iyo diin iyo dhaqan baynu leenahay labadaba wuu ka soo horjeedaa iminka afcaashan dhacaysa oo diiniyana waa xaaraan qof islaami inuu qof islaami dhiiggiisa daadiyo dhaqan ahaanna dee waa la istilaa oo waxaanu dhaqan u leenahay inta la istilaa in markiiba la heshiiyo oo ma jiitanto abaar baynu ku jiraa caqligiinu inaanu shaqaynayn waxaa lagu garanayaa dee abaarta laysma dili jira wixii isu cil qabaa waxay odhan jireen warbu guga haynoo doow gugaa la kala aargoosan jiray hawl kastoo taalla waxaa lala sugi jiray waktiga guga abaar baad colaad bilowdeen oo isdilaysaan aad baan uga xunnahay ujeeddada safarkayga markaan u soo noqdo waxaa weeye xukuumad ahaan waxaanu rabnaa inaanu idiin sheegno idinla socodsiino inaanan u dulqaadan doonin sii socodka arrimahan iyo dhimashada macno darrida ah ee socota waxaanu idiin sheegaynaa in mar haddaad idinku tashan kari weydeen oo heshiin kari weydeen dadkiina idin heshiisiin waayey oo laidin heshiisiin kari waayey inaanu idiin sheegno inaanu xukuumad ahaan soo dhexgelino hawshan inaanu tallaabooyin ad adag qaadayno inaanu go-aamo ad adag soo saarayno go-aamada ad adag eanu soo saaray ciddii ku dhaqmi weydaa in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan ciidamada hadda way idinla joogaan waanu u mahad celinaynaa ciidamada runtii dadaal weyn bay sameeyeen hawl weyn bay qabteen naf badan oo bixi lahayd bay badbaadiyeen inaad wada joogtaan oo magaalooyinka wada joogtaan bay sababeen inaad masaajidada ku wada tukataan bay sababeen tallaabooyin kuwaa ka sii durugsan baanu qaadi doonaa oo dhowaan soo bixi doona ilaa caawa oo aanu doonayno inaanu ku sugno amniga oo aanu doonayno inaanu ku joojino dhiigga daadanaya oo aanu doonayno in waajibaad baa naga saaran dadkan iyo dalkan inaanu gacanta ku qabanno waxaanu doonaynaa in danta aanu wadnaa waatiina nabadda idinka ayay dan idin tahay inagoo dhan bay dan inoo tahay waanu ka gubanaynaa xukuumad ahaan waxa socda tallaabooyinka aanu qaadayno waxaa la doonayaa in aad taageertaan oo ciidanka amniga sugaya la shaqaysaan waxaa kaloo socda oo barbar soconaya taa culimaudiin iyo odayaal iyagu wadi doona haddii alla ka dhigo wadahadallada oo wadi doona sidii loo nabadayn lahaa labada beelood waxaad isku dilaysaan bahar rasmiye qiyaaday ma jiro maala yacni baad dadkiina ku dhimanayaa ma kala maarantaan oo meel la kala tegi maysaan meel alligaala meel la kala tegaysaa ma jiraan aawo odayaashii aawo caqligii talin jira maxaa akhlidan dib isugu noqdo labadiina beeloodba dib isugu noqdoo waa laydinla yaaban yahay aad baa laydinla yaaban yahay dadku waa istilaa waana heshiiyaa dad wada dhashay oo deegaan wada jooga oo isdilay oo heshiin waayey dee waxbaa jira dib isugu noqdoo waxaan idinku codsanaynaa inaad dhammaantiinba isu taagtaan inaan qof damba dhiman ilaahay ka baqa oo ilaahay intaad ka baqdaan waxba iskuma haysaan waxba idinkama dhexeeyaan waxa la yaalo wax aad idinku kala maqni ma jiraan wixii dhintayna
maalayacni bay ku dhinteen iyo macno darri waxa dambe ha loo taliyo waxa dambe dhimashada dambe ha la joojiyo inta nool ha loo taliyo ehel baa tihiin hal qoys baa tihiin waxaan idinka codsanaynaa tallaabooyinkaa xukuumaddu ku kici doonto ee lagu sugayo amniga waa inaad taageertaan inaad aada u taageertaan waxaa halkaana marinaya waxa weeye waxaanu ka damqanaynaa waxa meesha ka socda waxaanu ka damqanaynaa muddada ay soo jiitamayeen waxaanu ka damqanaynaa in lagu guuldaraystay in la nabdiyo dadka aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahay abaarta iyo naba iyo colaadaba haynaga dulqaado laakiin idinku bal abaarta ilaahay baa keenay colaaddan aad keenaysaan joojiya aad iyo aad baan islaamay assalamu calaykum waraxmatullahi oo aan isna kelmadda siinaya kusoo dhawo wasiir bismi illaahi raxmaan raxiim dadweynaha halkan isugu yimi tuulada dabataag degmada dabataag marka koowaad aad baan idiin salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaanka bacdi sidii wasiirkii iga horreeyey iyo guddoomiyuhu bay idiin sheegeen waxa aan u soconnaa arrimaha colaadda ee wuxuushnimada runtii waxaan odhan karaa waa wuxuushnimo meesha ka socda dhiigga bilaa sababta u baxaya in ay qorshe loo sameeyo isku day badan baa dhacay oo arrinta aad baa loo galay dawladdu aad bay uga xil qaadatay kolley dariiqyo badan bay u martay dariiq ka duwan baanu kolley u soconnaa sida aragtaan wafti badan baanu ku maraynaa halkan ciidamadii waxaad iska dareemi karaysaan innagoo halkan idinka sheegay tallaabooyinka la qaadayo hadda in ay arrintii hore arrin ka bedelan aanu u soconno inaanu faraha la soo gallay inaanu arrintaas aanu xakamayno oo la qabto waa naga go-aan waxaad idinka codsanaynaa idinkana jaaniskii u dambeeyey aan maranaya kolley weeye dadku waxaan odhan karaa waa labo dadna waa dad shaydaan wato dadna dadka badankiisu kolley waa ka xun yahay aad baanu aragnay dadka qof walba calooshu ka ooyaya runtii waa arrin aad u xun weeyaan xilliga abaarta ah in dhiig ku daato qof raalli ka ahi ma jiro laakiin waxaad ku guuldaraysateen waxa weeyaan sidii aad annagana tala noola tashan lahaydeen idinkuna aad daacad uga qaban lahaydeen oo dadka yar ee fidma wadayaasha ah aad xukuumadda uga shaqayn lahaydeen idinkuna aad uga howlgeli lahaydeen taa waad ku guuldaraysateen laakiin waxay keentay in aanaan sidii hore aanaan u daba taagnaanin oo idinka idin daba fadhiisane aanu shaqa xoogle ama arrin mugle ka qabanno taasi waa taa tan kale abaartaa dheeraatay halkii aad ilaahay baryi lahaydeen oo dhan laha ilaahow roobna sii ayaad calooshiina iyo qalbigiina waxaad geliseen colaad iyo dhiig arrintaa waxaan leeyahay ka waantooba oo soo afjara oo ka baxa ilaahayna barya waxaanu halkan u soconnay kolley inaan abaartana eegno colaaddaasina aad bay noogu weynaatay eedo badan iyo hadallo badan oo nagu soo tuurtuuraysaan waxaad moodaan halkii aad odhan lahaydee war waxaa nala qabta oo tala nagula soo noqon lahaydeen in annaga aad leedihiin waa nala hagraday oo arig excuse beenbeena baanu maqlay dareemaynaa waxaan idin leeyahay hadalka waa mid weeyaan kolley go-aamadu waa dambeeya waana xilli amin xun weeyaan oo qoraaxa waxa halkaana soo mariyey waa xumaan arrin aanu ka xunnahay oo ka dhidhinay weeyaan inaanaan idinku eegin dhiiggaa daadanaya go-aamada iyadana waad maqli doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka dhinaca odayaasha deegaankan dabataag ayaan ugu horraysiin doonaa waxaan u yeedhi doonaa oday siciid xirsi oo aanu kelmad siin doono iyadoo laba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معناها ير حنون بهايو عودكو حبيب بيغا جرتا waxaan salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta ee meesha isugu yimid dawlad iyo shacba dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaan ka bacdi waxaanu labada gacmoodba ku qabananaa anoo ku hadlaya afka beesha khayr abdi garaadka sheekh caaqilka iyo dhammaan saqiir iyo kabiirtay leegi waxaan soo dhawaynaynaa nabadda
labada gacmood iyo afka waanu ku qabanana haddii aanu helno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markan waxaan u yeedhayaa isna oday maxamed cali oo inoogu xigaya siciid الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هل كان وحان صلان وقصو تشيدين يا حكومة دا قولها حكومة دا عدي كسو عنيسا عيدا مدى قبل كسول برا صاحبك يكو كيسا iyo intii kale ee ka maraysa dadweynahan meesha isugu yimid dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi ninbaa wuxuu yidhi war qoraxda kululaada wuxuu yidhi geeleennii baa maray waxaan filayaa masaafada intaa leeg waxaad u soo marteen iyo boodhka iyo qoraxda dhibka ka jira dhulkan iyadoo in badan la isku dayey in la xallilo shayddaanse u diiday saan filayo in la xallilo ka hadal ma leh waanu soo dhowaynaynaa horena waa u soo dhowaynay boqolkiiba boqol annagu haddaanu garan weynay annagoo walaalaa oo isku degaana oo aan waxba nagu kala maqanayn heshiiya in allaale intii islaama nooc ay u tahayba qayb kastaba ha ahaato hadday culimo tahay hadday maamul tahay hadday codkar tahay waxaanu ku soo dhowaynaynaa hawshaa wixii dhici lahaa waa dhaceen intii dhiman lahayd waa dhimatay intii dhaawacmi lahayd waa dhaawacantay annaga laftigayagu badidayadu ma ana dadaal yarayne shayddaanka unbaa naga qaalib noqday waxaanu soo dhowaynaynaa nabadda aad noo wadaan haddaanan annagu idinla qaban oo xaggayaga ayan ka imanna qabsoomi mayso war diyaar ma u nahay nabaddaa inaynu ka qayb qaadanno war waanahay khaatumo waanahay sugsug war waanahay hadalkaygana waan wadanayaa intanina way garanaysaa xildhibaan khaatumaa waanahay khaatumiya somalilanna waad ogteen xaaladdeedu meeshay marayso ninbaa wuxuu yidhi war waxay la tahay nin buuran buu ahayo gabadha kama dhali weyn gabadheeda badha hakarasha idinku jirtee war idinkoo labada maamula addimada iyo ilkaha bay isugu geeyaan nabadda annana waanu soo dhowaynaynaa wadahadal baa socda nabad baa la xidhay wax la qarin karana ma aha waanu soo dhowaynaynaa ninkii aan soo dhowaynayn waxay la tahay waa nin balaaya wadato intaa waxaa ii raaca rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alamnu waaliimaan amni wax ka horrayn karaa ma jiro ninku hadduu amni waayo gurigi buusan fadhiisanayn geed buusan gelan waynu garanaynaa waxaan raacinayaa amniga ka bacdi niman yahow dee kollay dadkii badh baa nool abaartu waa xun tahay biyola'aantu waa jirtaa cuntola'aantu dad iyo dunya waa jirtaa oonku waa jiraa waxbarasho la'aani waa jirtaa wixii aad nagala qaban kartaan idinkoo labadaa qaybood aan magacaybaba isla kaashanaya war waanu soo dhowaynaynaa nala qabta aad iyo aad baad idiin salaamaya waadna mudantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rabaabe waxaan idin idhi masaafada intaa leeg waxay u soo mareen dadka ay madaxda u yihiin iyo dadka maxay ay degaanka deganba in abaarna waynu ku jirnaa iyadoo qofna qof eegayn waxaynu jecel lahayn meel looga soo wada jeesto waa ogeydan cuqaal iyo oday hanti badan baa xukuumaddu ku bixisay odayaasha wadaadada maanta iyo culimaaudiinka ugu dambeeyey iyadoo aan hore usii socon doono safarkiga sii wadan doono go'aamo adagina ay ka soo bixi doonaan waxaan u yeedhayaa wasiirka wasaaradda odayaashii waaweynaa reer somalilan ay leedahay baa garan kartaan arrintan loo socdaa sidii loo dhammayn lahaa haddii ay idinku waxba garan weydeen xukuumaddu waxay u soo tafaxaydatay in gacan bira lagu qabto howlaha ku soo dhowow sacaadati wasiir بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيخي وينو أخري القرآن إنه لكن شيطانكو أدبو بيلا الكلام مرينو نواكو بديهي أدبو حوك سدي hawryari ku tegi maayo haddaan idhaahdo laba saddex toban goor hayla yaabinoo shaydaankaa xoog badan ka dhulkan u soo gudbay oo dhulkaa busaaradda ah oo wax lagu dagaalamo aan ool oo dhirtii qallashay oo raxmaddii ka guurtay been idiin sheegi maayo waxaan maanta la kulmay oo saaxiibadii intaanu gaariga wada saarnay baan u tilmaamay waxaan arkay mid xoogaa qaada sita oo malaha dee maaragtay raggii annaga nala socday ah
oo dhalinyaro ah oo gacanta ku sita baa neef xoolahay arkay wan buu ahaa orod buu soo daayey waa laysa sigay dagaal baa dhici gaadhay waxaanu dhito miduuna adkaadee annana uma kala hiilin waxaana wanka naftiisu waa maxalli oo meesha degaankiisii buu joogaa cabaar daawasho aad u qiimo leh bay ahaydoo riwaayadahayo baanu ku soo dari doonaa intaa keliya baashu kuma joogto waxaan aragnaa hadda odaybaa oday ka daba kacay isagu inuu sheego annagu hadda khaatumo iyo uma soconno sheeko khaatumo ma taal waa wax gooni ah cidda iyo wadahadalkeeda iyo dad gaara buu leeyahay majliska aan hadalka aan majliskaa ku dhammaanay lama soo hadal qaado annagu hal shay oo keliya baanu u soconnaa wafdiga xooggala laydiin sheegay tirada badan leh wuxuu u socdaa oo keliya nabaddii loo caal waayey oo mandaqadda tan laga quustay ma sidaasaa lagaga sabraa baa la isweydiiyey ilaa madaxweynaha qaranka baa taladeeda u fadhiistay intaa ma kaga sabiraa kuwan meel bay ku socdaane mala xagga aakhira isaga dhammaanayaan wax la yidhi maya waa ummad waddanka u dhalatay xaq bay leedahay mashaakil intaa ka badan bayna soo maray aan dul qaadanno wixii kharaji inaga baxay aan ilowno wixii talo iyo tabaalo inaga baxay kale aan ilowno waxa tarada laysugu geeyey inaan mar digniintii u dambaysay labadaa beelood oo walaalahaa soo siinaa shaahid yaa shams xataa qoraxdaa markhaati furaysa halkaasaanu isa soo kiin hor taagnay waxdana aanu wadanaa ma jiro habaaska halka ka jira habaasyadii aan soo maray oo dhan guddidaan ku jira guddida abaaraha weli intii aanu madaxweynahoo dhulkoo dhan maray baan la soconnay wafdigaasaan ka mid ahaa weli habaaskan ka xoog badan isagaaba ku qabsanaya gawaanida oo dhan ugu casaatay midabku way surogay waxbaa cibrad ilaahay leeyahay iyo xikmad baa ku jirta xataa dabayshu dabayshii ma aha habaasku habaaskii ma aha haddii alla wadahadalkaan arki jiray nin odaya baana yidhi markaanu hadda maanta annagoo maxiidkiina ku jirno degmadii kaleanu hadda soo maray bu wuxuu yidhi halkan inaga kiciyo makhaayl baanu shaa ku cabayne waxaan tao meeshuu idin wadaa ma meel eerkan diishan labaa ma meel shaah yaallabaa ma meel caane lagu dhawayaa waxaan arkana iskuulsa jaway oo laga tegey lama tuso cidda markaa aad rabto oo martida kuu ah ducfigaaga lama tuso waxaa la tusaa dadnimadaada waxaa la tusaa raganimadaada waxaa la tusaa waxaad ummadaada u qabatay waa naxay ilaahay ugu ogyahay badhan baa xataa triblaygii sare waa ka duulay waxaa wasiirkii waxbarashada nala socday wuu qiiroodo waa jidbooday hadduu wuxuuna oran lahaa oo odhan lahaa dawladda waan maqlayaa baasuukada maxaa lagala soo doontay ma lala aado maydaanka dagaalkaa la tagaa dhulkaasu waa muqadasaadka dadka masjidyada iyo malcaamadaha iyo iskuullada iyo waa lama taabtaan waa wax ummaddu wada leedahay wax dhallinyaradu leedahay waa cilmi marka in lagu soo hoos noqdaa ducfi bay keenaysaa waxaan anigu leeyahay waxaa halkan sidii saaxiibadeedii iga horreeya u sheegeen qofku hadduu noodhiis bixiyo faqad andar markaa waa noodhiiskaa hadduu bixiyo waa ka soo dhammaatay waxaanu xabeebsannahay waxaa ragga qaar u xiiqsan yihiin intii hawshaa lagu bixiyey iyo kharashkii waktigii ku lumay ba aad u badnaa ma ay noqonin waktibaa saacatalijaabaa jirto ay soo dhacdo oo maaragtay dadka quluubtooda ilaahay si soo dhoweeyo dabadeedna ay wax walba hagaagaan saacaddii bay naga maqan waxaan anigu leeyahay dib isugu noqda alla bari ha la sameeyo dib ha loo ducaysto duco badan samaysta xaaladdu waa adag tahay adduunku weynahoo dhanba wayna daawanayaa waxaa la leeyahay labadaa mintaqadood oo isayaa maxay isku hayaan wax alla waxaad ku jawaabtaa ma jiro siyaasad iyo isir iyo midna inay naf intaa la eego nafa intaa la eg
وعزيزي كبحان ونصيب دروين ونصيب دروين وحلانا هي الله يستبقبته وحول بدبقبته ليه هي وحاكلا ينكور وريقا إنه الدنيا دا إيو رواية دا السياسة ديو ما أنت بالنافع مايان من تقدم والله صوت فحيتي وحانو قرنينا ما تشرتو ووحل الله وإنا ندخل ولا هيا سيان بروري كتير لو شيء نوي سيدي صاحب بدأ يقهر ريال وشيئين وهو قوليه وسريي وقرنك مسير كيسا كتلنا يبقى قوان كان قالي وانا صوفري فرينتي بالو سيدنا مسؤوليات وحين فري صاحب بني آدم لمدو سيدا عنو يدين سوى قارسين لي إنا نو منطقة مهم كودان لقاها لايو إنا نو قارسينو وحيك انتا كدن بيا وحيسكو هذايا إذا كقرنك ويساقو مركا وحي مركا تلابو أنشح إيا بريو إيا مركي وحاول أي شغين وايان دعادو مركا أي شغين ويدو وإذا نفتادو كاكا دبتو إذا كقرنك عمرقيسا الله الراجبين ولا لهاي iyaguna waxay diyaar u yihiin oo mas'uuliyiintu ka marag yihiin taliyaha markii aanu hadda ka soo noqonay shirkii ugu dambeeyaanu wadnay qoladiyaashii wixii fadhiyay buu ogeysiyey wuxuu yidhi innagii baa laynoo kala tegey innagii macnaha fooda isdarro maaha waa kala quus baan gaadhaynaa ama dad rajo leh oo habadooda dambe in la qabto baad noqonaysaan ama dad rajo beelay oo la yidhaah meel bay ka socotaa xag ilaahay iyo maqaadiir kalaa socoto inaga awood badan ha laysu daayo oo sidii hadda muddo ah mar keliya lama odhan intaa waxbaa la wado muxaawarad bay dowladdu ciidda ma samaysanayn dacaayadaha siyaasadda kuma darsanayn kuma faraxsanayn qof alla qofkii waa qof muwaatin oo somalilan ka baxa buu ahaa qofkii halka ku dhintaa ma garatay oo shahiida oo qof kale walaalkiisa ay xaq isku leeyihiin uu yani sidee khiyaamaha u dilay midba midka kale calaa kulli xaal waxaan kusoo gabagabaynaynaa hadal badan waxaa ka intii la sheegay un baan xoojinayaa waxaan leeyahay isku soo noqosho dambe iyo awrna eryata oo xoogaaga qaadka qofku sito ka daba timaada xooluhu inay hadlaan bay ku dhow yihiin mar haddii ay xaalkaa gaadhaan waa la arkay in markaa wanku idinku hadlo oo yidhaa waa laykadayoo dhulkii raxmaddu lahayd raxmaddiina wayga raagtay meelo badan baa rooba ka da'een miyi iyo magaalaba leh runtii waxaan filayaa inaan bar ku tiixday xagga kan inaanay jirin baryahan dambe ilaahayna isagaa irsaaqadana qaybiya raxmadda iyo roobkana isagaa gacanta ku haya waxaan leenahay dib ha laysugu noqdo duca bilaaba xoolo la qalayaa ma jiro hadda bariiskuun baa loo karsadaa bariiskaa la badiyaa habeenkaa mar haddii aad markaa inta waxay la cuno aad haysataanba waxaad isku dayaysaan inaad la soo baxdaan aamin iyo raganimo cusub oo aad tidhaahdaan nabaday warkaa sheegan ninku waayay baa sheega xasanoon habeen seexan noloshana ku guulseega xasanoon habeen seexan noloshana ku guulseega nabaday warkaa sheegan ninku waayay baa sheega xasanoon habeen seexan noloshana ku guulseega gacmaha sida aad nabad diyaar u tihiin dambi dhaaf baanu rabnaa ilaahadow adigaanu xaggaaga u soo noqonnay ilaah waa toobad keennay ilaahadow wax kastoo xun waa ka toobad keennay ilaahu noo dambi dhaaf ilaahu roob noo shub ilaahu nabadgelyo noo shub ilaahadow noo aqbal
ilaahu naga raali noqo ilaahu saasaan kaa barina ilaahadow noo aqbal ilaahu noo aqbal ilaahadow ha naga weesweesin ilaahadow dadka xadhigga qaloocan kula dhex jira ilaahu naga saar ilaahu xadhiggooda kala goo ilaahadow rabbiw dadka khayrka wada ee samawadaha ee taageeraya khayrka ilaahadow ku taageer ilaahu ku gargaar ilaahu ku taageer ilaahu ku soo dhowee ilaahadow awood sii buuxda waxaan u qabaa labada reer hadday nabaddu ka soo go'do oo si bilaahinimo uga soo go'do oo lilaahinimadu waa laga yaaba qalbiga ka weydoonaysaa waa rabtaan odayaal iyo nindoor iyo ciddu waa rabtaan laakiin waxa weeyaan intaa in lawada si dhowaado oo meeshii ay wax ka soo muuqdaan bala baktiyo oo laga dabato meeshaa qabto intaa haddaynu ku soo waxaan qabaa annana waxaanu helaynaa garbo wanaagsan wixii wanaagsan waxaan kala gelaynaa insha allah sharciga iyo khayrka iyo iskushiidista iyo xukunka iyo wax walba meeshaan noolnaa insha allah ku kala geynaa ilaa marka u dambaysa saa haddaan u soconaynaa ilaahay meesha u dambaysa gaadho markaanka dambe siin haddii cidda diwadna oo joojin mayno haddii wiil yar hadda gaamiyo wax sameeyo anagu joojin mayno diyaar ma ogtihiin hawsha wadno mise marka nin la dilaba xagga noqdee eeda waxmaynaan qaban wada horta maxaa ku taagasheen wax kastoo dhaca waynu wadaynaa hawsha waynu wadaynaa insha allahu taala qablihii dadaal lagu ogaa diinta fidinteeda dacwaddana ku fognaa baryahan gabadadkoodiiye dulmiguba ma joogeen hadday nabadda doonaane waa quwad dahsoon oo weliba loo diyaar yahaye nin kastoo isdoorbida haweenyu dugsanayaaye middii dihatay iyo tii caqdiga daayin la wadaajay iyo tii aabbihii daadashayhii la dacal joogtay iyo ubaxa uu daadiye dahab masaalkiiya intaasuba dareenkiisa way doorin karayaane malcolaada damisaan hablo durugta ceebtiiye maalcolaada damisaan habloo durugtay ceebtiiye dagaal laguma dhiiriyo ninkii kuu danqumin laaye durbaandhiila lama tumo hadhow oo hindaba taan leh durbaandhiila lama tumo hadhow oo hindaba taan leh dabka laguma shubo wiilasha daanwanleed abide dhaxdin doora iyo dhalasho aan duugay odhanaynin dhaxdin doora iyo dhalasho aan duugay odhanaynin iyo daris islaamnimo haddii loo xaqdayi waayo aakhiraa dambaysee hablow daysta hadalkayga aakhiraa dambaysee hablow daystay hadalkayga dabka horay walaalaha isdilay dogobka qiiqaaya kaaladrowga daannada falkiyo deyrkan kala oodmay sidii duul amxaaro ah raggaan diir isugu oolin dareenla'idu waa waxay tolkay lagu dawgalee dareenla'idu waa wixii tolkay lagu dawgalay ee aan daweeyo gabagaygu waa daacad iyo hiile dadkuna kama sinne eh daalin baa wiiqay dunidiiye doqon nacas ah liitaa dallaya dowdar iyo tug xun dibjir iyo nimaan diin lahayn bayna dorsadaye isagaa dabkuushaday khalqigu hiifay dabadiiye isagaa dadnimadii ka tegey oo dagaagtamaye nindoorkiina isagaa deldelay duhur dhaareede dayrkii gabbaad noqon lahaa duudumiye shaalleeye islaamnimada duulkaan tixgelin amase diinteenna darisnimadana aan xeerinayn waa daalin xoogsadaye aakhiro markuu saqaro dego darakadaa hoose ee ololku daafaha ka maro lagu daboolaayo tolkii uu difaacee ku lumay doocna tari waaye dembiguu kasbaday baa ku rida dakhalkii naareede dunidana cidhuudhuu ku jiri diiqad iyo ciile dekanooyinkuu galay markii laysu daba joogo dadabtiyo ma aamino guryaha loo diyaafadaye dumarkiina kala quuste oo iska diba jooge dugaaggiyo abeesada ayay daris wadaagaane qalbiguna dembuu noqon rajadu iska dabateele dadka bariixii ugu xigay yuu ka didayaaye deganaansho way kala tageen wuu ku doogsade ee xadhkihii ibliis daadshay buu daakhilka u galee dacal kale haddaan eego dunidu waa yaabe nin dulleeyey qoladay ahayd hooyadii dihatay ama dahabadiisii tolkeed dawacaduu loogay ee seedigiisii daraad deeqaduu mehershay dumbuq iyo rasaas doora iyo waran la doonaya ama duqaydii heerkiiyo dhammaan xididkii soo doortay intuu dooxo libin doonayaa waa damiin marane sodohaha la dhalandooriyee diifta la asqaysan habaryaraha daaduumaye dala la meeraaya hooyada ilmada duugaysee diilalyadu hayso waa duni gadoon iyo hadaan diirka galahayne
miyaan heertolkay dakhalka jabay ila dareemaynin miyaan heertolkay dakhalka jabay ila dareemaynin miyaan culimmadii daacadnimo diinta fidinaynin miyaan duubabkii xaajada dib u jalleecaynin caqligii miyuu dooreeyo garashadii daashay taariikhdu waa qalinku duug jiil dambaa warine miyaan sharafta deelqaafku galay loo godayahaynin miyaan dacarta ciilkiiyo islucu jeerna damahaynin miyaan deeqda eebiyo raxmaad cididanaynaynin miyaan daarta aakhiro dadkani dooc ka garanaynin dacal kale dantii guud haddaan dib uga faalloodo degmadeenna amar baa ka jira guuldariya yaabe dadweynuhuna amakaag la dhimay daawashuyo ceebe dhowr haloo idiin daran haddaan idin dareensiiyo doqonnimada ceebooda dugsiga dood iswada moodka kaaladrowga jibiyaha isduri beel u kala doodka isdacweynta doodaha dhalada la iska soo daayo odayaasha doobinahayeen doocna garanaynin durbaankooda yaa hersolkii loogu dawgalaye isdaweeye sharaftii dunto durugta ceebtii dadka eelka reebay eelka ee wada dhashay ee islaamka ilaah qulubta bulcad sumari ilaah qulubta bulcad sumari ilaah waxaan ku weydiiyay nabad waarta oo aan colaadi ka damay alla u keen nabad waarta oo aan ka damay alla u keen qulubta loo jeclaysi maxabay ka gacala loo isu geli ilaahay waxaan ka baraynaa subxaanahu wa ta'aala wixii dhaawacmay ilaah u حسنون هابسي حمل شنا كبول سيغا نبدين الكاتارم وحتى هين عذيبي نبدين الكاتارم وحتى هين عذيبي كنارن 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 شيدانكو كنارن نبدي 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 نبدي
arrintaa waynu ku taageeraynaa wax maanta colaadaa laga sii wado iyo cid wax ku gaaraysaa midna ma jiraan guribaa iyo buldaro adooga nin la dilo kakale la dilo adooga laba la dilo kakale la dilo taasudaa siyaadiisa halkii aad ka wadaan ka sii wada halkii baanaynu kula shaqaynaynaa deegaanka rag culimadu waxay aadna farteen waanu qaadanaynaa inuu wacnaa wax wacan qofka haddii la faro inuu qaato oo ilaahay ka cabsado oo uu yidhaahdo ilaahdow banaayo bannaankaasaan ka jooga ayaa wacan idinkana waanu qaadanay taladiinnii wacnay dhibaatada idin soo gaaraysa waxayna tahay xasanaad baa inii kordhaya idinku intaad soconaysaan xasanaad baa inii kordhaya sidii le ilaahayna waa idinku dambi dhaafaya ummadda aad kala celinaysaan ee bini aadanka waajib baa idinka saaraa guryihiin waxaad ku timaadeen iyo boosasku anaa aad joogteen aad boorkaa marasaan waxaad wadaan inaan qaadano waa qaadanay waa igula qaadanay annaga gaar nooma aha annaga dan nooma aha dan bay noo wada tahay inaad rugitaan baan doonaynaa wajo kuwani waa dumarkii nabadaan idinla qaadanay markaan reerdaba taageernahay marka aan reerka anigu aan ka dhashaynaana waa idinla qaadanay khayr haddii yaraanahay الهلاوي ركابي لا يا رب نبض بحرة ولا هو أكتر يدي أكتر نبض ومخاطر هذا الكوح كل عادين وبعض واحد مقاعد من النبض وأن كبوا حنا يقول يعني لا تقول على محل إلهي بو خير قبحين إلهي بو خير قبحين إلهي بو خير قبحين إلهي كنا أوسر كان إلهي يكبولي إلهي يكبولي إلهي يكبولي إلهي نمود يكبولي إلهي نبدي روح هين قتين waxaa noo soo booqateen nabadayn baa noo soo booqateen haddaad nabadayn noo soo booqateen waa naga habsaanteen horta marka ugu horeysa waa naga habsaanteen inaad noo soo degtaan noo dhaqsa lahaataan noo dhugma lahaataan bay ahayd haddaad noo timaadeen booqashadaanu waanu idinka ajiibnay 14 boqolkaan idinkaga ajiibnay waxaanu idinka ajiibnay nabadda aad wadaan ee noo wadaanna waan idinka ajiibnay waana idinka guddoonay waxaanu idinkaga guddoonay si niyaad oo waxaanu idinkaga guddoonay si kalsooni oo waxaanu idinkaga guddoonay si aanu dantayada ah waa dantayada waxaad noola socotaa waa dantayada waanu idinka guddoonay wadalkooda maanta halqalin hawshaadna ka noqoteen nabadii ma qaadateen allah idin barakeeyo maalinka sabtigaa baanu ku ballansanay odayaashii inay isugu soo noqdaan dhaascaaneed xaajadii xaajo shareecaan lagu gelayaa xaajadii insha allahu tacaala kitaabka shareecada islaamka loo bandhigayaa ilaahna waxaanu ka baryaynaa inuu noo fududeeyo warwiilayow inaad iskaba qabataan oo walaalihiina kala walaalowdaan oo cadowga idinka shisheeya iska dugsataan diyaar bay tihiin gacanta taaga khayr ilaahay haydi siiyo khayr ilaahay lawsu waxaa weeye laba beelood maahido hal beel baa tihiin oo labada saddex beelood ma kala hayn hal beel baynu isku nahay haddaynu aftirsano qaar baanu ilmaadeesti 7 iyo 8 noqonay waxa weeye war waxaanu idiin wadnaa nabad walalan
culimada ah waa ballansanayn laascaanood baanu isku aragnay shir bay qabteen shir nabadeed ah shirkaa nabadeed waanu ka ajiibnay waxay ballan qaadeen inay hawsha wadayaan annagana waxay amar nagu siiyeen oo ka ballan qaadnay inaanu hawsha wadayno inaanu nabadoonnimada ku wada soconayno ku wada shaqaynayno labada beeloodna qolo waliba baxayso iyaguna ay baxayaan oo ay soo ogaanayaan hadba meesha aanu joogno waa ilaahay maadi horta hadday nooga soo hormare waxaan leenahay waan idloodaysiinaya horta dad badan yaa weheliya reerka aad hadda u jeedinaysaan hadda dad badan baa weheliyooda baataa dadkaa weheliya waxay markhaati ka noqonayaan waxa aad u sheegteen iyo waxa ay ballan qaadeen haddii lahayd ma isku raacnay oo ma ballan qaadaynaa inaynu inta wanaagsan qaadano yaagana qaadano maasha allah waa war wanaagsan waxaan maalintii dhow hadalkaygu ku darsaday naabaari maysaana waad noo ducaynaysaa naabaari maysaana waad noo imankana waad aragtaan culimo odayaal nabadoonayaal waad aragtaan sida wanaagsanoo laydinku soo qabtay iyo quruxda idinkoo weliba naga soo hormaray waanan anagu intaanu idinka soo horaynay aanan oranin war kuwiina xilxilaa ka laabta kuwa wanaagsanna noo keena inaanaan waad aragtaa way wada wanaagsan tahay baanu anagu aragnaa caadiga ballankaa sidaasaan anaguna idinla soconay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala baan mahad u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isu keenay si nabadqaba si nabadgelya safarka inoo fududeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan isugu keenay meeshan yaroo kooban ilaahay baasaan mahad u celinaa subxaanahu wa tacaala ducooyinka faraha badan allah idinsiiya mahad u celinaynaa waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibkayna haysta ee mid colaadeeda ee mid abaareeda ilaahay inuuna ka qaado subxaanahu wa tacaala ducadeenaas iyo hadalkeenaas ilaahay inuu noo qaado salaad casar baynu ka soo baxnay dad islaam aynu nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xilligu waynu ku adag yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala mashaakishaa jira imtixaankaa jira ilaahay inuu ka qaado subxaanahu wa tacaala qodobka labaad waxaan u mahad celinayaa marka koobaad marka labaad qaryadan odayaasha baasha sida fiican u hadlay sida fiican isu soo abaabulay sida fiican yani u hadlay oo yani meesha isugu yimid waxaan leeyahay subxaanahu wa tacaala innagoo anigu aan idin soo gaadhin baa qabanna aad iyo aad baad u mahadsantihiin allah idin barakeeyo ilahina waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala nabadda aad ku dhawaaqdeen hore inaad ugu dhawaaqi jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo taam yeelo culummadaas runtii safarka dheer soo gashay ilaa shalay ku jirtay meelaha faraha badan martay laga yaabo in waxaa weeye hadallo xun oo naftooda iyo aan raalligelin in lagu yidhi waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryan ayagana miisaanka xasanaadka ilaahay ku saara subxaanahu wa tacaala odayaal iyo cuqaal iyo beesheenna halkan fadhiya culummadaas yacni shardi bay nala galeen annana waa la galay runtii waxaa jirta waxyaala fara badan aynu ka caban jirnay oo qolyihii hore oo waxaa weeye kacakufay oo nabadda inoo qaaday ay kaga duwan yihiin waxaanu ka caban jirnay in waxaa weeye markaynu ama inagu khaldanno oo nabaddii baljarinno oo xaggeena khalad ka yimaado inaan khaladkeena laynoo sheegin ama in darafka kale oo aynu ishayno markay khalad keenaan inaan khaladkaa loo sheegin maanta insha allahu tacaala kitaabkii bay inoo hayaan cidaynu kaga kalsoonahay ma jirto waa culimmadeenni iyo insha allahu tacaala waa shaykhayga iyo diinta iyo tacliimtay soo baray waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inaysan wax yani baadila ama xaqdarra inayna qarinaynin ilaahina subxaana wa tacaala waxaan allaha la garab galo allaha ku guulaysiiyo dembigooda allaha ku dhaafo inana waxaan inoo ka baahan yahay odayaal iyo cuqaal iyo beesheenna ilaahay subxaana wa tacaala aynu u qaadana inaynu ka run sheegno oo ka dhabayno oo ilaahay subxaana wa tacaala keena khaldan qabanno wartashiilka hayaan wax allaale waxaad noola timaadeen in wanaaga waa qaadanay waa idinka yeelay waa idinka ajibnay waa idinku soo dhaweynaynaa ilaahayna idinka abaalmariyaan ilaahayna idinka baryana in magaalada ka ilaalisaan wixii dibadda idinka yimaada saa sheegteen
إن قرار باي كور هيسو أي سنت تو وحدي وضع أي كور هيسو قولي أنا إلا سحرية قولي أنا سجارة ولا سحرية وحلوس تعطى ما أنت مرة لا تعطى أول شيء عند الله نبض اللقاء أبد جوجنا نقول واقع ورجاشي يدري متى أبد جوجنا نبض واقع وأقول للناس تعالى مرة يقول لي أبيك يقول يعني يقول لي سأسوع يستو أديمه ويقول لي أبيك لكن سوق سوى الله سوى مرة أما قولوا الناس يستو ليش يقولون أنا سكما منه أقوله ولا نجى لكما منه آل بعد كم هالعيلنا هذا له ونكسر يو دينه ونكسر يو قولوا البوليسين علموا هذا علموا سلموا واحد مجالنا كسر شدة قارئ لكن هذا هو اللي شغلته لكن مركز واحد مركز أنا بترسل هذا في الغطاء بعض مركز مغارة علموا حاجة قوها وبدك قوها إن ما تضبط لك أنا نقول قصة لكن ورقي وين بقيت تري وأكرر حي وأكون تري أيام أنا مدبر نقوم مش مصنع ما أنت مركز عرفت عكاتي وحي مال وعيرهم ونعلمهم ضمانها وأول مال أروح على نقول تطوعي الوطي وكما دبستي إن شاء الله يجيبنا سلاح وفهمة إلهي وحمد لكم لنا إلهي وحمد لسنا رحمة الصلاة إلهي نبض الصيور إلهي نبض الصيور حاجة وحرمري روبك إلهي نبض يعراد أو لنبض على با إلهي نومنا حريصنا عاجل انت من قبل يا الله حريص إلهي ما يستاهلوا ربنا ما يستاهلوا إلهي نوضصي إلهي نوضصي إلهي أرادنا نسع إلهي قبل الحمان إلهي الحمان إلهي صلاة الحمان إلهي صلاة الحمان إلهي بقى الحمان إلهي الدنعي إلهي نسع وأنا ربنا غاوة يوم الدنيا يا سلام الدنيا يا سلام نسع إلهي توضنا يا أكبر إلهي توضنا يا أكبر إلهي لا يرشد الله ناش إلهي لا يرشد الله ناش